السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا ونكسني دلهانتين بوامر كلا يحمنتيني ورقتيدا وحاي قرآن وتطبعد كهال مركة هاتان شاشة التلفزيون كان يشمال التيتي. برنامجك على وحيدين دادي ساني قواعد wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa ariga Ingiriiska ayaa wax ka qoray toogasho ka dhacday dalka Mareykanka oo ay dadku dhaawacmeen. Qormada wargeyskan ayaa soo baxday 21 bisha September sanada 2021. Rasaas ayaa laga maqlay gudaha dugsiga sare ee Heritage ee Newport ee gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhaawacmay sida ay sheegeen baarayaashu. Wiil 17 jir ah ayaa wajiga xabad looga dhuftay iyo gabadh la daa taasoo lugta laga toogtay. sida ay sheegeen booliska gobolkaas Isniinta ay soo dhaafnay. Sidoo kale boolisku waxay sheegeen in 2 qof ee dhaawacmay ay soo gaadhin dhaawacyo aan halis gelin karin noloshooda. ciidamada booliska ayaa xog ku galay dhismaha dugsiga iyadoo ardayda loo daadgurayay maxkamadda taniska ee ka dhow dugsiga. Baarayaasha ayaa rumaysan in ruuxa toogashada geysta uu garanayay dhibanayaasha isla markaana uu jiray gacan ka hadal. Shuuti oo ah wiil dhalinyaro ah ayaa la xiray inkastoo aanay caddayn inuu arday yahay. booliska gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa ka jawaabay wararka sheegaya dhacdo weyn oo ka dhacday dugsi sare Isniintii baara duhurkii. Ninka wax toogtay oo ah wiil dhalinyaro ah ayaa xabsiga la dhigay wax yar kadib. FBI-da Mareykanka iyo saraakiisha fulinta sharciga maxalliga ah ayaa gudaha u galay xubinteena labaad ee barnaamijkeena wargeysyada waxay qoraan. wargeyska dawan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa ayaa qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay daada ilmaha loogu sheegi karo dhimashada cidda uu jecel yahay. Qormada wargeyskan ayaa soo baxday 20 bisha September sanada 2021. daada ilmaha inta u dhaxaysa 8 bilood ilaa 1 sano waxa maskaxdiisa soo gala fikirka geerida ama ugu yaraan in noloshu ay leedahay dhamaada. waxaana inta badan la bilaabantaa marka hooyadu naaska ay ka dayso oo uu dareemo inuu gaar ka noqday cid uu ku tirsanaa. marka uu 2 sano gaaro ilmuhu waxa uu bilaabmaa inuu ku dhawaaqo erayo muujinaya geeri oo si gaar ah looga maqlo marka uu ciyaarayo. tusaale ahaan waan ku dilayaa. inkastoo geeridu ka hadlaya ay tahay mid la mid ah geerida ku jirta qisaska carruurta ee aakhirkii dib loo soo noolaanayo. waana sababta ilmaha yar marka lagu ciyaarayo la isaga dhigo in la dhintay oo cabaar kadib ku dhawaaqo erayo la micnaa in la tooso ay ciyaartii dhamaatay. marka uu ilmuhu gaaro daada 6 sano waxa uu si buuxda u garanayaa in geeridu ay tahay dhacdo gunaanad u ah nolosha oo aanu qofku adduunyada ku soo noqonayn. waxaanu bilaabaa markaas inuu waalidka weydiiyo su'aalo la xidhiidha jiritaanka iyo nolosha. marka ilmuhu gaaro daada 8 sano jirka waxa uu ogaadaa in dhimashadu ay tahay xukun dhammaan dadka oo dhan ay marayaan isaga qudhisina uu dhiman doono mar un. intaas waxaan ku soo afmeerayaa xubinteena wargeysyada idin la socodsiinaya anigoo Aid Maamul. tan iyo intaan dib u kulmi doona amaana la kulanti dambe oo xiiso leh.